aqoonta kasbiga ah ee bini'aadanka uu gaadhay ee imikaaynu dhahno sayniska iyo technologiga ilaahay wuxuu ugu talagalay in ay jiilba jiil ay gaadhaan markaasi aqoonta islamarkaana ay ku dabaqaan waxyiga samaawiga ah ee qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam. arrintaasina waxay iftiimisay kelinimada ilaahay iyo jiritaanka ilaahay oo qofku marka uu cilmi yeesho uu ku ogaanayo quwad iyo awood leh oo sifaadka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay oo dhan isagu keligii uu leeyahay. waxaa kaloo caddaynaysaa in aad qirto kelinimada ilaahay iyo inuu isagu keligii abuuray sidii u abuuray kelinimo ee uu jirsiiyeyna mar labaad uu dib u celin karo oo dib haddana usoo nooleyn karo uu isagu tasarufka si wal uu doono uu ku samayn karo. sidaa darteed ba aayadaha qaarkood waxa ay tilmaamayaan iyaga oo cajsi gelinaya oo ka soo qaadaya in ayna cilmiga bini'aadanku ay gaadheen uuna ka ahayn qiyaas irbad la geliyey bad inta ay ka soo qaadi karto in lamid ah. ilaahay wuxuu kitaabkiisa ku yidhi dhinacyada isdaboolka habeenka iyo maalinta ayaa waxa ay tilmaamaysaa aayaddu in yuliju leyla fi nahaar wayuliju nahaara fi leyl. sidee bay habeenku ugu dhexgelaya maalintuna habeenka ugu dhexgelaysanaysa. aqoonta bini'aadanku markaa waxay gaadhay inay ogaato in shucaaca inta badan caadada soo daysa badankeeda aan la arkin. iftuunkuna wuxuu samaysmaa oo keli ah 100 kilomitir oo gaaska ku wareegsan dhulka dushiisa ah marka ay cadeedu shucaaceedu soo galo. haddii 100 kilomitir la dhaafana dhammaan kownka gebigiisu wax weeyaan mugdi oo aan waxba la arkayn. sidaa darteed bay aayadda kale ee qur-aanku waxa ay leedahay waleyli idaa yaqshaaha. taasi waxay caddaynaysaa markaasi in dhammaan kownku guud ahaan marka 100 kilomitir ee gaaskaasi ama taagan tahay wixii ka sarreeya ay tahay madowgaasi marka la dhaafana waxa uu qur-aanku inoo sheegayaa in uu qofka bini'aadanka uu oranayo malaha indhahaygii baa la sixray mise wax ma arkayo waan indhabeelay. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.